بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kulli waa wax dhib badan oo aad u naxdin badan shilka noocaas oo kale ah iyo qaraxa baaxadaas leh inuu maanta intaasoo shacaba ku dhaco dhibaatada intaa leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed soo gaadho oo waxa looga xumaado. waan ka tacsiyeenaynaa waxaan u tacsiyeenaynaa dowladda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii ku geeriyooday ehelkoodii iyo qaraabadoodii shilka waxshinimada leh fulinimada ee bahalnimada ee maanta mujtamacaas abriyada ah dadkaas aan waxba galabsanin maanta lagu laaynayo wadooyinka. laakiin waxaan rabaa inaan Soomaalida u sheego dhibka intaan leeg wuxuu ku dhacayaa waxaan inuu geysanay gacmaheena kula imanayna waxaan inuu gacmaheena ku samaysanay way haddaan meel uga soo wada jeesano oon iska qabanno oon gacmaha ka qabanno maanta dhibka intaan leeg muuna dhaceen. sidaa daraaddeed marka hore waan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed, madax iyo dowlad iyo shacabba dhibaatada intaan leeg. ilaahayna waxaan uga baryayaa kuwii dhinteen inuu jannadii ka waraabiyo, kuwa dhaawacmayna ilaahay inuu booga dhayo. intaa ka bacdi waxaan ku dari lahaa dagaalkani ma aha dagaal shakhsi iyo guruub iyo ciidan iyo dowlad midna ku socda. waa mid ibaada shacbiya, dadba shacabka lagu tirtirayaa. waa xasuuq shacabka loo geysanaya. haddaynaan garanin waxa aan la dagaalamayna iyo sifadaan ula dagaalamaynana waxaan is leeyahay dhib badan iyo mushkilad badan baan la kulmi doonaa. waxaan soo jeedinaya shacabka Soomaaliyeed u soo jeedinaya inay garab istaagaan ciidamada ammaanka, inay noqdaan wardoonka dhabta ee jira, inay khaladka iyo waxay arkaan iyagu sheegaan, inay baabuurka socod xun yahay qofka hulaabta xun ay arkaan iyagu ciidamada amniga u sheegaan. ciidan iyo dowladbana waxaan ku tarin lahaa, xukuumaddana kula tarin lahaa oo dhammaan siyaasiyiinta Soomaalida aan odhan lahaa qolayska badaan ee siyaasadda intii la yareeyo aan amniga u soo jeesano oo amniga waxa laga qabto. maxaa la xukumayaa maalin walba hadday boqolaal dhimato oo macno darro ay ku dhimato oo agoontu inugu badato oo maalin walba araamishii iyo dadkaas inuu soo bataan oo maalin walba dhibaatadu taagnaato wax la xukuma lama heli doono. wax lagu xukumi karaa in dadku marka hore ay amni helaan. ha la saaro amniga, ha la dhiso ciidamada amniga, ha laga shaqeeyo, ha la isku xidho shacabka iyo amniga oo ciidanka ammaanka iyo shacabku ha wada shaqeeyeen oo ninkani meeluu galaa ha waayo. qofka waxaan geysanaya manaxaa maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna cidnana u jeedin cidnana u turayn. maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna cidna rajo ka lahayn. maanta qof waliba wuu arkayaa inuuna aabbihii iyo hooyadii iyo awowgii iyo macallin iyo dhakhtar iyo sheekh iyo shariiftoona inuuna badbaadinin. intaasoo dhan marka inaan miisaanka saaraa lanooga baahan yahay. aad baan shacabka ugu celcelinayaa inay ciidamada amniga garab istaagaan, kala shaqeeyaan, xogta siiyaan, waxay ka shakiyaan maanta inay dadka u sheegaan ciidankana waxaan leeyahay waxaad u dhimanaysaan waa shacabkiinne, shaqadiina labanlaaba. xukuumaddana waxaan rabaa inaan kula taliyo tarkiiska siyaasadda iyo saxaafadda iyo hebel intii layska daayo la yareeyo, amniga ha loo soo jeesto, waxna ha laga qabto. dhaqaalaha waxa kaloo dhan ku baxayana intii la dhimo amniga ha la dhiso. biyo sacbadaada looga dhargaa. maanta ciidamo kale iyo cid kale toona waxba kuma qaban karaysa. annaga waxaan qabsan karnaa qabsano. mar labaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay dadkaasna ha u naxariisto. kulligeena sabir iyo ilaahay naga siiyo. asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.